waxaa garoonka diyaaraduhu ka haadaan kana soo degaan ee magaalada Hargeysa si weyn maanta loogu soo dhaweeyay Dr. Barre Xuseen Jaamac oo ka mid ah qurbajooga reer Somaliland ee ku nool waddanka UK sidoo kalena ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani. Soo dhaweynta loo sameeyay Dr. Barre Xuseen waxaa ka qayb galay madax dhaqameed, dadweyne kala duwan iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socday gudida sahan barwaaqo, waxaana bafurka halkaasi hadal ka soo jeediyay dadweyne kala duwan oo isugu jira sarreeye dhaqan Yaasiin Maxamed Aadan, afayeenka gudida sahan barwaaqo Jamaal Cabdi Guuxa, gudoomiyaha gudida siyaasadda Gahayr Mahad Maxamed Cabdi, agaasimaha gudida Danjir Axmed Shaafi oo dhammaantoodba si isku mid ah ugu soo dhaweeyay dalka Dr. Barre Xuseen Jaamac. maanta waxaanu soo dhaweynaynaa doctorkeena weyn ilaahay baan weyne oo maanta aynu ku soo dhaweynay madaarkii Hargeysa isagoo dalku aad ugu baahnaa dhaqaatiirta oo aynu ognahay maantana ka qayb noqon doona isbeddelka dalka ka dhacaya ayuu ka qayb noqon doonaa insha Allah qaybtii dhaqaatiirta ayuu ka yahay ee dibadda inooga timi ee qalliinka wuxuu hogaamin doonaa isbeddelka oo xisbiga wadani ayuu ka yahay xubnaha sare dhaqaatiirtana wuxuu ka yahay ragga koowaad. waxaan leenahay ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii oo ku baahan Dr. Barre Xuseen Jaamac. welcome baanu ku leenahay waxa iyagaas waxaanu diyaar u nahay oo ugu faraxsanahay inaad soo gaadho gudi odayaal dhalinyaro aqoon-yahan cid kasta waa ku diyaar. waxaynu maanta halkan iskugu nimi inaynu ku soo dhaweyno inankeenii dhakhtarkeenii Dr. Barre Xuseen Jaamac Axmed oo aad iyo aad qalbiyadeena ugu weyn ayaynu maanta halkan iskugu nimi inaynu ku soo dhaweyno. waxaanu leenahay Dr. soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii oo ku jecel ku soo dhawow. waxaan maanta soo dhaweynaynaa Dr. Barre Xuseen Jaamac oo ka mid ah runtii qurbajoogta iyo xubnaha sare ee firfircoon ee xisbiga wadani iyo aqoon-yahanka runtii waddankani leeyahay. aynu rabno inay isbeddelka waddanka ka dhacaya hoggaankiisa ay majaraha u qabtaan haddii la yiraahdo. doctorka aad baan ugu faraxsanahay isagoo muddo waddanka ka maqnaa inuu maanta runtii ku soo guriya noqday oo uu diyaar u yahay inuu isbeddelka iyo hawlaha socda qaybtiisa ka qaato sidoo awal horeba oo qayb uga qaadanayay. waxa xusid mudan runtii doctorku inuu barnaamijka quruxda badan ee xisbiga wadani uu rabo inuu waddanka ku haago uu ahaa madaxdii ama xubnihii ugu sarreeyay ee sida fiican uga shaqeeyay runtii ee diyaariyay maxsuulka quruxda badan aynu arkayno inuu rabno inaynu fulino insha Allah haddii la yiraahdo mustaqbalkana. aad iyo aad baan doctorka mar labaad u soo dhaweynaynaa aanu dalkiisa dadkaba ugu soo dhaweynaynaa. waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo inay hawlo fara badan oo xilligan socda ay noo qabsoomi doonaan insha Allah haddii la yiraahdo. dhammaan dadka halkan isugu yimiday oo runtii ay hogaaminayaan madaxdii sahan barwaaqo gudida sahan barwaaqo ee gudida saraacida kale iyo sidoo kale dhammaan ardayga gaashaanbuureedba iyo dhalinyaradii iyo xubnihi siyaasiyiintaaba aad iyo aad bay runtii doctorka u soo dhaweynayaan iyo madaxdii kale xisbigu ay nala joogaan. waxaan markaa runtii rajaynaynaa in hawluhu si qurux badan halkoodii ay nooga socon doonaan. doctorkana waxaan leenahay mar labaad soo dhaweey. waxaa kelmaday isugu jira mahad celin isaguna halkaasi ka soo jeediyay Dr. Barre Xuseen Jaamac oo ka mahadnaqay qaabka loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaraduhu ka haadaan kana soo degaan Cigaar International Airport ee magaalada Hargeysa. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha halkan igu soo dhaweeyay oo asxaab xisbiyo ehelo iyo dad aad u tiro badan madax dhaqameed. waxaan leeyahay waad mahadsantiin rag iyo dumarba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. in badan baan horta waddanka ka maqnaa laakiin kamaan maqlayna waanan joogay. saa daraadeed waxaanu samaynaynaa alxamdulillah kol haddii isbeddelo waddankeenu ka socdo nabadgelyada guud baa inoo muhiima. isbeddelkuna inuu si caafimaad qabto ku dhaco mas'uuliyadda koowaadna inaynu qaadano dadkeena Somaliland mas'uuliyadda nabadgelyadooda la ilaaliyo. doorashaduna si fiican inoogu dhacdo dadka Somalilandna ay isbeddelka u codeeyaan iyo wanaagga taasaa ugu muhiimsan.